diinta islaamka iyo sida ay dumarka u qiimaysay. diintu dumarku waa ay sharaftay, waxa ay diintu ilaalisay oo ay mas'uuliyadeeda meel saartay maalinta ay dhalatay ilaa iyo maalinta ay dhimanayso. rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa uu aad uga dardaarmay koriimada gabdhaha. lama hayo hal xadiis oo dhiirigelinaya koriimada wiilka, laakiin taa bedelkeeda waxaa jira 10 xadiis oo dhiirigelinaya koriimada gabadha. rasuulku sallallahu alayhi wasallam gabdhaha iyo koriimadooda waxa uu ku daray waxyaabaha ugu mudan ee eebbe loogu dhawaanayo jannadana lagu muto. rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa uu xadiis ku yiri, qofka koriya oo kafaalo qaada 2 hablood ilaa ay ka qaangaaraan, aniga iyo isaga waxa jannada dhexdeeda ku noqonaynaa sida 2 farood. riwaayad kalena waxa uu rasuulku sallallahu alayhi wasallam ku yiri, qofkii hal gabar koriya oo koriimadeeda hagaajiya, jannadiisa aniga ayaa u kafaalo qaaday. sidoo kale rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa uu gabdhaha ku tilmaamay inay yihiin qaali xaq dhowr mudan oo aysan kolna suuragal ahayn in la naco ama la dhibo. rasuulku sallallahu alayhi wasallam sidoo kale waxa uu yiri xadiis macnihiisu uu yahay, gabdhaha nicina waayo iyagu waa kuwa la weheshado oo qaali ah. waxa uu kale sidoo kale rasuulku yiri, qofka ay gabar u joogto oo aan dhibin oo aan liidin oo aan sidoo kale wiilasha ka doorbidin, ilaahay baa qofkaasi intaasi janno ku gelinaya. diintu waxa ay tirtirsiisay in gabadha si gaar ah loo dhowro marka ay yar yihiin, si fiican loo koriyo. marka guurka la noqdana ninka ayaa loo qasbay oo mas'uuliyadeeda oo dhan dusha laga saaray. marasho iyo masruuf iyo xanaano qasab ah ayay isaga ku leedahay, xitaa haddii ay iyadu tahay mid shaqaysata oo income iyo dakhliba leh. haddii ay ninka kala tagaanna oo ay caruur u dhashay, waa qasab inuu ninku ku biilo caruurta. haddii ay tahay garoob aan caruur u dhalin ama garoob caruur lagu dayacay, islaamku waxa uu dhiirigeliyey in u gargaaridooda lagu muto janno iyo u dhawaashaha eebbe. oo rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri, midka u taagan u gargaaridda garoobada iyo masaakiinta ee ku dadaalaya caawintooda waxa uu xagga ajarka la mid yahay midka jidka eebbe ku jihaadaya ee shahiidka ah. wuxuu kaloo rasuulku sallallahu alayhi wasallam yiri, midka u dadaalaya garoobada oo u istaaga caawintooda waxa uu la mid yahay xagga ajarka mid weligii soomanaa oo aan joojin soonka iyo nin weligii salaad u taagnaa oo aan joojin salaad badnida. waxaan ognahay in cibaadooyinka soonka iyo salaadu ay ka midka yihiin cibaadooyinka sarsare ee eebbe loogu dhawaado oo ajarka ugu badan iyo dambi dhaafyadaba lagu helo. haddii cibaadooyinka sidaa u qaaliga ah ajarkooda lala mid dhigay oo kaalmeynta garoobada ama single motherka, waxaa halkaa ku cad sida diinta islaamku ay isha ugu hayso una dhowrayso xuquuqda dumarka. rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa uu diiday in dumarka la garaaco oo waxa uu yiri, kuwa dumarka garaaca aqyaar ma aha, ha garaacina dumarka adoomada alla ah. wuxuu kaloo rasuulku sallallahu alayhi wasallam yiri, gurigayga waxaa ka batay haween raggooda ka dacwoonaya, wallaahi kuwaasi inaysan aqyaar ahayn. riwaayad kalena waxa ay sheegtaa in nebigu sallallahu alayhi wasallam uu aad uga carooday haweenka raggooda soo dileen oo uu yiri, maxay guriga ugu soo bateen haweenka raggooda ka cabanaya? wallaahi kuwaas aqyaar ma aha, oo sidee idinkugu suurageli kartaa inaad haweenka galinka hore garaacdaan habeenkiina la seexataan? war haweenka u tura oo qeyr isaga dardaarma. rasuulku sallallahu alayhi wasallam marka uu safar galayo, haweenka waa uu ka ilaalin jiray dhibaatada safarka oo waxa uu ku qaadi jiray awrta oo laga dhex sameeyo guryo. xitaa marka laga hoobanayo meelaha taaga ah, wuxuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam oran jiray, war dumarka u tura oo si tartiiba awrtaha looga soo dejiyo taaga. diinta islaamku waxa ay sugtay xuquuqda dumarka oo waxa ay dumarka siisay xuquuq la siman oo la mid ah midda ragga iyagu ay ku leeyihiin. haweenku waxa ay ragga ku leeyihiin xuquuq la mid ah midda ay iyagu raggooda ku leeyihiin oo xagga wanaajinta samafalka ah. ragguna waxa ay dheer yihiin darajada mas'uuliyadda qoyska oo iyaga la saaray.